waxaa weli socda howlihii shaqo ee cilaajka Daarul Qur'aan ee magaalada Jowhar. Sheekha cilaajka Daarul Qur'aan Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir ayaa waxa uu bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ugu baaqay inay isku daaweeyaan Qur'aanka Kariimka. جن باتهاي جني باتهاي يمسي جن باتيوريا يمسا 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 جيني يسباتي ميغا جينا ميغا يسا ميغا جينا لا يا جينا ماني بامسوارنا لما باتيوريا حكتم باتي قبدا قبدا معكم ماكسين يا وريا جعلاتين معكم جعلاتين وريا يا نظافتها كل جعلاتين يمغلي سوريا ورئيس يمغلي سوريا يمغلي سوريا كنتي سان قبل بس كمان يقصيا كنتي سوريا كنتي سوريا كنتي سوريا ورا مال دوريا وش يركي وريا وش يركي كعر مش كعر راسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سيتها مقعه مدينه حضر يساب هي الله عافية هي على الصلاة هي على الصلاة هي على الفلاح هي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر قلت سوريا ما قلت سوريا يا قلت سوريا قبل وريا قلت سوريا يا قلت قبل يا سرع قعنت رسول سرع قعنت سرع رسول بلا الله كقول دوريا مجرم من سرع وريا سرع رسول سرع وريا سرع رسول وريا قعنت وريا يمغلي سوريا كتيجي سقول وريا كتيجي سوريا وشار كمان دمبو ما ندل وشار كيا ما كتيجي سنافة دمبو كليه ده منافة كتيجي سا يا وريا سيدا قبل كارمش بسم الله السلام عليكم شاتها والله عالم كنول waxaan ogeysiinayna xarunta Daarul Qur'aan inay shaqeynayso galab iyo subax inay shaqeynayso inay u taagan tahay ummadda muslimiinta ah ee la dhibaataysan sixirka iyo xasidka iyo isha iyo jinigaba inta la dhibaataysan ummadda arkaysan ee halka jooga waxay la dhibaataysan yihiin waa il waa jin waa xasid waa sixir inta la dhibaataysan yihiin ilaahay tabaaraka wa taala ba mahadle ee shaqada nafasiyay ee shaqadana ma aragtay inuu soo istaajiyay ilaahayga baa kuma hadle ummadda muslimiinta ah ee xanuunyadooda noqday kuba durdur ah ama ziyaaday noqday isbitaaladana ku soo daalay ee la daaldhacanayaan sixirka iyo xasidka intaba ilaahay tabaaraka wa taala quraankiisa inaan saarno ayaan garaysanay ilaahayna ma aragtay caafimaad ugu siiyo waxa yeelay quraanka kariimka ah wax waliba quraanka baa laga helaa caafimaadkii shifadaba quraanka buu ku dhex jiraa fiihi shifaa'un linnaas ilaahi tabaaraka wa taala ayaa yiri qolkay booyaan sixirka sidaan ogsoonnahay uu dhibaato badan yahay waxa dareemi kara qofka sixirka inuu dhibaato leeyahay qofka xanuunkiisa ee la taabsiyay ama xanuunkiisa arkay ee qofka la daaldhacay la joogo ama familiga uu la joogo ayaa dareemi kara ummadda waxaan ogeysiinaynaa aan la socodsiinaynaa xarunta Daarul Qur'aan inay furan tahay quraan saarkana uu socdo qof alaala qofkii la dhiban xanuunyada ha soo gaaro xarunta xaqiiqatan horta bini'aadamku iska dhib badan yahay shaydaanku horta waa cadow jinniguna waa cadow falidaalika qof waliba horta haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku xiran yahay qalbigiisana ilaahay uu rumaysan yahay jinni iska daaye wax la mid ah xataa ma aragtay qalbigiisa inuu geli looma baahna balse hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku xiran yahay ummadda ilaahay tabaaraka wa tacaala dartiisa u saarayo quraanka ilaahay baa ilaalinayo annaga isma ilaalin karno laakiin ilaahay baa la ilaalin karo dadaalkan wuxuu ku jiraa quraanka iyo adkaarta hadduu rabbi subhanahu wa tacaala uu ka raali noqdo ibtidaai baan nahay hadda xoolihii ayaan wadnaa oo shaqadii ayaa bilaab ah insha Allah xarunta salkeeda uu balaaran doona insha Allah salwin bay yeesho doontaa hadduu rabbi subhanahu wa tacaala uu ka raali noqdo wax waliba oo markaa ummadda bulshada ay danaynaysan insha Allah waxaan diyaar lanahay inaan ku garab istaagno dal iyo dibadba insha Allah